وأنيقو عين محمد أحمد الحمد لله وأنا عافماد خواصد وجيتان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos ku soo qoriyo aniga inaan leeyahay sababtan qoraalku soo qoran waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sidaa darteed fiidiyogan waxaan u soo duubay sidoo kale fiidiyogan waxaan u soo duubayaa inay jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay soo kuwaas oo wixii rabo laga sheegayo soo xaqiiqda jirto waxaan ku soo qoray qoraalka anoo isku fiicneen inaan si fiican u hadlo sidaa darteed waxaan rabaa xaqiiqda saxda in hoos idin ku soo qoro ma inta Soomaaliya inta badan ay taageertana oo kuma santiin aad u maasantiin in sida sharteen waa idin sharfo xigashada muuqaalkani waa Cayuun Qurux oo si toos ah Facebook page u soo gelisay sidoo kale waxaa faafinaya dad caan ah Muniir official Cali Aadan Muumin iyo dad fara badan muuqaalka haatan aad diyaarinayo ma jiro qof YouTube soo galiyay waxaana sababta kaliya ee aan YouTube ku soo gelinayo oo aan rabay in dadka YouTube ku jiro ay muuqaalkan arkaan iyo dadka igu xiran waxaa jira muuqaal hore oo dadka YouTubeska kuwa caanka iyo kuwa kaleba ay si qaldan muuqaalka ugu faafiyeen aragtideeda gadaal ayaan kugu la wadaagi doonaa waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareyso si dad badan uu u gaaro tan kale waxaa jira qoraal dheer oo ay gabadhu soo qortay oo ay ku sheegaysay in hadalka ay isku fiicneen sida darteed qoraal ahaan u soo qori doonto qoraalkii oo ay soo qortay iyo anigoo akhrinayo ayaa muuqaalka ku dhex arki doonta waana muuqaalka haatan kuu muuqda ama aad arki doonto si qoraal ah iyo codba ah daawasho wacan assalaamu calaykum ugu horeyn ilaahay ayaa mahad leh oo ah cidda kaliya ee mudan mahadnaqa xilliga farxadda iyo midda murugada sidoo kale waxaan rabaa in aan idin mahad celiyo cid walba oo garab istaagtay qoraalkan waxaan idinkugu soo qoray in aan runta idinkugu cadeeyo videoga aniga igu saabsan ee meelaha la wareejinayo horta aniga waxaan ahay ani iyo ilaahay ayaa is og cidna maanta aragtidiisa waxba igama bedelayso laakiin videogaas wuxuu ahaa sanad iyo bar ka hor waxaa jiray wiil aan wada soconay oo aan moodayay qof rag ah oo qiimo leh laakiin alle ayaa og cid walba waxa ay tahay iyo waxa uu qarsan markii aan muddo wada soconay waxaan go'aansaday in aan ka harno kadib muddo ayuu idaba socday oo uu raadinayay in aan xiriirkii soo celiyo markii uu iga quustay kadib ayuu maalin maalmaha ka mid ah ii soo diray videogan wuxuuna isku dayay in uu si qasab ah xiriirkeena u soo celiyo ana waxaan ka fakaray in aan wadadaas xun sii qaado anigoo ka baqaya videogaas in uu faafo iyo in aan caqabadan wajaho oo aan ku iraahdo waxa doonto samee waayo qofka maalin ayuu dhashaa maalin ayuuna dhintaa in aan anigoo dambi qarinayo aan dambiyaal nolosheeda la haro saameeyo waxaan ka doorbiday in aan nabarka u bareero nabar hal mar igu dhaco kadibna aan xor noqdo sidaa darteed maanta wixii uu awooday wuu sameeyay balse aniga waxaan rabaa in aysan niyad jabin sababtoo ah waxaan ahay aniga iyo alle ayaa is og cabsi asiga ayaa iga mudan oo ay tahay in aan u wada laabano laakiin waxaa ila qaldan in aan dambiyo kale sii galo inta aan ka fakarayo oo aan ka cabsanayo waxa bulshada ku falcelin doonto ugu dambeyn walaalayaal waxaa jira warar been abuur ah dad magacayga ku qaraabanaya iyo kuwo kaleba ay isdhex wadaan kuwaas oo dad aanan dambi lahayn sawiradooda meelaha soo dhigayo oo balse waxaan rabaa inaan idin cadeeyo wararkaasi waa been abuur oo ma jeclay qof beri ka ah in dambi laga faafiyo sidaa darteed arrinta qusaysa falcelinta iyo waxa aan ka yeeli doono lahaa qofka waxaas igu sameeyay waxaan rabaa inaan ugu dambeeyo familigeyga sidaa darteed waxaan si xushmad leh iyo qadarin leh idinkaga codsanayaa in arrintaasi aad joojisaan ka hadalkeeda oo aan u madax banaaneeyo qoyskeyga mahadsanid haddii aan aragtideyda ka dhiibto run ahaantii muuqaalkaasi waxa aan shakhsi ahaanteeda aan hubaa haddii Cayuun ay soo gelin lahayd muuqaalkaasi TikTok-geeda inuusan noqon lahayn muuqaal weyn kaliya la dhihi lahaa var tusaale atiriisho faadiyo oo hor fadhisa kaamirada ayaa waxaa gacanta ugu dhacaysa jirkeeda meel kamid ah waliba waana Cayuun meelaha muuqaalka laga baahiyay kamid ah ee taabanayso waxaasina wax weyn maysan ahayn waxaan aad ugu mahad celinayaa gabadha dhowrsan ee xijaaban ee Cayuun la yiraahdo oo ceebta loogu raadinayo wax aan ceeb ahayn sidoo kale waxaan hubaa inuu ka ceeb badan yahay qofkii muuqaalkaasi baahiyay waayo waxay aamintay 10% kalsooni ah waxa uuna baahiyay wixii wax lagu aaminay oo sidaas ahaa waxaan ka codsan lahaa Cayuun Qurux in qofkaasi
nala wadaagto si dadku ugu socnaado gabdhaha kalena ay ugu gartaan dadka si aysan mar kale qof kale u qiyaamin asana ay ugu noqoto musiibo iyo dhibaato mar walba hortaalo si sawiradiisa dadku u wada bartaan asana ay gartaan intaas yar qofkii ay ku aamintay weliba nasiibka lahaa oo qofkan xiriir la soo sameeyay waxaa laga yaabaa inuu ku faalan lahaa balse tan ayaa ku dhacday waxaan kaa xasanayaa daawada in muuqaalka aad share gareyso like gareyso siina faafiso waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad channelka cusubtaa subscribe saar like saar siina share garey mahadsanid